Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada muuqaal cusub. Waxaan qaadanaynaa maanta daawooyinka loo isticmaalo indhaha, weliba qaybta eye dropka, weliba loo isticmaalo qofka indhaha xanuunayo ama ka buko ama laga qalay ama dhakhtar u soo qoro drobiska loo isticmaalo. Kow, waxa u horeeyo gentamicin ear drop ayadoo ayaan ka soo hadalnay, haddana waxaan ka hadlaynaa eye drop. Daawadan gentamicin waxaa loo isticmaalaa eye drop, indhaha ayaa loo isticmaalaa. Atropine waa daawo kaleeto loo isticmaalo indhaha, iyo Bridinicol oo loo isticmaalo daawada indhaha oo eye drop tahay. Chlorphenicol haddii aan hore usoo aragnaa ayadoo loo isticmaalo ear drop, ayadoo waxaa loo isticmaalaa haddana aan arkaynaa eye drop ayadoo loo isticmaalayo. Waxaa kaloo jirto bomato loo yaqaano tetracycline eye ointment oo bomaate indhaha qofka allergy ka qabo ama jugta ka gaartay ayaa loo isticmaalaa. Ergivin eye drop ayadana waa daawo kaleeto indhaha loo isticmaalo oo ah gojo. Atopic biotic eye drop ayadana waa jirtaa. Autobiotic drop waa daawooyin haddii qofka uu jug ka gaartay isha ama yacni looga dhufta tusaale dharbaaxtin oo isha ay gaduudatay, inflammation ayay qaaday, daawada keliya ku habboon ee la sii karo waa daawadana autobiotic drop oo ah daawo indhaha qallajinayso haddii dhaawac isha kaasoo gaarto, weliba qaybta cad ee loo yaqaano iskaleeraha. MB calor waa eye ointment, waa daawo kaleeto chlorphenicol camal ah, loo isticmaalo ayadoo bomaate ah laguna shubayo air dropka, weliba ayadoo ah eye drop nooceeda ah. Bridinicol haddii aan hore usoo aragnay, Bridinicol oo loo isticmaalo ayadoo xasaasi ah, eye drop ayaa loo isticmaalaa. Epivanic eye drop ayadana waa loo isticmaalaa, waa daawo sida deglafinta oo kaleeto. Epivanic haddaa maqasho waa deglavanic camal waaye. Eye dropka ayaa loo isticmaalaa. Ciprofloxacin waa daawo aad u fiican, ayadana qallajiso haddii jug indhaha kaasoo gaaraan ama isha wax kaasoo gaaraan, si aad iskaga baabi'iso xanuunkaas ama cuncunka. Eye drop ayadoo ah waatan daawada hadda ugu muhiimsan ee mar walbeeta aan ka hadlaynay oo la yiraahdo deglavanic eye drop. waa daawadii haddaa aan ka hadlaynay oo dhahaynay epivanic eye drop. Eye dropkan ayadana mar walbeeta waxaa loo isticmaalaa jugta haddii isha kaasoo gaarto, dhaawac haddii kaasoo gaarto, haddii cuncun kaasoo gaadho. Tusaale, haddii qashin uu kaaga bido adigoo iska socdo jidka ama wadada hareeraheeda, haddii dabeel xoogan ee maata isha kaa gelisa, ishaasna adiga amar marto xanuun iyo cuncun iyo guduud intaba rayso wayso aad ku aragto, waxaa isticmaali kartaa deglavanic eye drop. taas ayaa ku isticmaali kartaa. waa mahadsantihiin. halkan ayaa kusoo koobaynaa cashirkeena daawooyinkiisa qaybta indhaha. wabilaahi towfiiq. is aragti dambe oo xiise leh. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.